munaasabad baroor diiq ah oo lagu xusayo xasuuqyadii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada Jigjiga 19 bishii August sanadii 1977 ayaa lagu qabtay dusha sare ee buurta Karamardha ee galbeedka magaalada Jigjiga. munaasabadani baroor diiqda ah ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada magaalada Jigjiga oo isu xilqaamay inay soo xasuusiyaan bulshada dhibaatooyinkii soo maray iyadoo la abuurayo jawi isku duubni lagana gudbayo tafaraaruqa iyo qabyaaladda in laga faa'iideysto leedha isbedelka ka dhacay deegaanka. munaasabadani baroor diiqda ah ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, axsaabta mucaaradka iyo xisbiga talada haya. talisyadii kala duwanaa ee dalkan Itoobiya soo maray ayaa xasuuqyo kala duwan u geystay shacabka deegaanka Soomaalida. xasuuqyadaasi oo intooda badan salka ku hayay isir nacayb. sanadii 1960 ayay ahayd markii taliskii Menelik xasuuqa baan u geystay shacabka degmada Ashica, taasi oo falcelin uga dhigay taliskii buuraleyda Itoobiya ee Menelik xorriyadii ay qaadatay Soomaaliya awgeed in laga tirtiro shacabka Soomaalida guud ahaan dalweynaha Itoobiya. dhanka kale buurta caanka ee Karamardha oo ka mid ahayd goobihii ugu adkaa ee dagaalka qadhaadhi ku dhexmaray ciidamadii Soomaaliya iyo taliskii Cornel Mangiste ayaa lagu xasuuqay shacab Birmageyda ah kadib guuldaradii soo gaadhay ciidamadii Soomaaliya iyo jabhadii Soomaali galbeed. bilowgii sanadkan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu sheegay in buurta Karamardha taalooyin looga dhisi doono halyeeyadii ka qayb galay guushii dagaalkii 1977 taasi oo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen mas'uuliyiin, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Soomaalida. ma suuroobay 2 sanadood horteed in taariikhdan oo kale aynu ka shanqarino ama aynu kor u qaadno. waxaynu maqlaynay suugaantii iyo gabayadii xorriyadda ku salaysnaa. taasna waa mid waqtigeeda leh mudan inaan Ilaahay ku shukrino, guusheedana inaynu si u diyaar garowno, hanashadeedana ay mudan tahay. dhibaatooyin badan baa soo maray dadkeena. waxa nasiib darro ah inaynu waxba ka bilaabi kari weyno oo mararka qaarkood kii dhibka geystay la xuso. waxa aan aad ugu haweynahay maanta wax badan baa naga qabiya ujeedadayadu laakiin marnaba ma aha haddii aanu anagu shalay ooyeynay oo aabbayaashii la dilay beritoole inta aan gadoodno in dad kale caruuro kale aabbayaashood la dilo oo iyagu ooyaan. marnaba ujeedadayadu ma aha. ujeedadayadu waxa weeyaan in cashar laga barto dadkan alla isbaday ee wada degani shalay haddaynu ooyeynay berri inaynaan ooyin oo aanay noqon kuwa aynu godobo isugu qaadno oo aynu isku gowracne, kuwa aynu isugu garawno oo aynu isugu soo dhawaano oo wixii qalad inaga dhacay aynu ku saxno. 43 sanadood kadib waxaa magaalada Jigjiga markii ugu horeysay laga xusayaa xasuuqii loo geystay shacab weynihii ku noolaa magaalada Jigjiga 19 bishii August sanadii 1977. munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay Naciima Cabdow oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa wax ku soo bartay iminkana isku soo taagay xilka xildhibaan ee heer federaal. waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, senataro iyo waliba aqoon-yahano Soomaaliyeed ayaa dhammaan waxay ku taageereen Naciimo in ay hesho kursigaas. Malyuun Xasan oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed kana socotay madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku amaantay Naciima dadaalkii ay u soo gashay heerka maanta ay soo gaartay iyadoo ugu baaqday xildhibaanada federaalka Soomaaliya in ay garab istaagaan Naciima. waa u baahneen inay nagu soo biiraan gabdho maadaama aan olole dheer soo galnay 30% waliba inaan isku yareyno 50 aan dhahno. markaan ka Malyuun ahaan haddii doorashada ay noqoto doorasho qof iyo cod ah deegaan walba ay gabari joogto waxaan jeclahay inaan olole u galo. mid xigta waxa waaye dagaalka gabdhaha ku wajahan wuu badan yahay. waxaan rabaa ayagana inay muujiyaan isjacayl iyo isgarab istaag sababtoo ah xilligii aan ku doodaynay 30% waa laga soo gudbay. markaan waxaan rabnaa inaan 100%
siddeetan aan soo dhaweeyo. xildhibaan dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dheeraaday ka hadalka ay leedahay in gabar wax baratay u soo noqoto in aqoonteeda ay ku garab istaagto shacabkeeda isagoo intaa raaciyay inay ku taageerayaan hablaha Soomaaliyeed in siyaasadda ay soo beegsadaan. runtii waa ku faraxsanahay inay tartan nala galaan haweenkeena inay tartan nala galaan gabdhaheena raali baana ka nahay kursiga hadda maanta ayada kulley ay ku tartami doonto waxaan u malaynayaa inuu rag ugu fadhiyo aan gabar laga kicinayn kii gabdhahana baarlamaanka Soomaaliyeed annagoo mar waliba aan jecelnahay gabdhaha kootadoodii ayadoo aan u buuxinay haddana waxaan u ansixinay in gabar kursigeeda gabar leh u tartami karto aan rag u geli karin iyadoo baryahanba annaga ee odayaasha haddaan nahay ama dhalinyarada cuslaatay aan iraada xoogaa hoos aan soo dego dhinacna dhalinyaradii yaryar ee weerar nagu yihiin dhinacna haweenweynihii Soomaaliyeed gabdhihii iyagana ay weerar ay ku wada yihiin oo kulligooda nin walba uu dhahayo odayaashaana meesha qabsaday waa in laga kiciyaa oo laga dhaqaajiyaa waxaan jeclaan lahay inay wax noo hambeeyaan oo haddii dhalinyaradana dhinac naga riixdo gabdhihiina dhinac naga soo riixaan odayaasha dhexday ka baxayaan marka odayaashana in meel loo fiiriyo haddii kale waxaa naga soo dhow hadda inaan mooshin aan keenno maxaa yeelay wasaaradda haweenka way jirtaa wasaaradda dhalinyarada way jirtaa wasaaradda odayaasha inaan ku dhawaaqnaan rabnaa gorro almiina meel aan u baxsano saan u helno walaaca laga qabo in wax heshiis lagu wada yahay ay ka soo baxaan shirka Dhuusamareeb 3 ayaa sii kordhaya tan iyo markii laga war helay go'aanka diidmada ee Puntland iyo Jubbaland magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa ka socda shirka Dhuusamareeb 3 wajigiisii koowaad shirkaasi oo iminka qayb ahaan u muuqda mid qabyo ah marka la eego kuraasta banaan ee hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland dhinaca kale beesha caalamka oo ilgaara ku haysta shirka ka socda Dhuusamareeb ayaa qoraal ka soo baxay Arbacadii waxay ku sheegeen inaysan aqbali doonin go'aan gaar ah ama qayb gaar ah oo ka mid ah Soomaaliya in go'aan ay qaataan beesha caalamku waxay sheegtay in loo baahan yahay go'aan mid ah inuu ka soo baxo shirka Dhuusamareeb waxaana ay ka biidiiday in qayb ka mid ah Soomaaliya iyagu ay go'aan gaaraan qaar ka mid ah dadka Muqdisho oo maanta la hadla Soomaali Cable waxay ka hadlayaan shirka ka socda Dhuusamareeb heshiiska ay ka falayaan in Soomaalidu ay gaaraan dhinaca kale waxay ku kala duwan yihiin go'aanada ka soo baxaya beesha caalamka ee la xiriira arrimaha shirka Dhuusamareeb oo ay imika sheegeen ba inaysan doonin in faragelin ay sameeyso beesha caalamka Soomaali way Soomaali annaga hadda dadkeena og wixii gaaray hore waad ogtahay ajnabigu wuxuu doonayaa wadanka inuu isagu gumaysi inoo keeno marka ka yeelmayno waxaan ka codsanayaa madaxweynaha farmaajo waxaan ka codsanayaa inuu dadka madaxda wax maqlo oo wax weydiiyo waa ninkii meesha u sareeyay weey marka maamul goboleedna waxaan leeyahay soo dhawaada wadankiina weey wadanka idinka madax ah idinka mas'uul ah dib iyo qaar na gelina iyo gumaysi dadka Soomaalidu xaqiiqada iyo runta way iska indha tiraan beeshan caalamka lagu sheegay faragelin awal bayna galama maqnayn waayo dawladda Soomaaliya inta badan faragelin xoog ah lagu hayaa ninka madaxweynaha imanaya dad baa wata dawladaha shisheeye waad ogto xalana ka dhex samaysan dawladda Muqdisho waa wadan gaar oo dunida oo dhan joogto faragelin markaa kama marna laakiin hadda way muujinayaan marka doorashadu timaado maadaama dhaqaale wax ku bixiyaan khasab weeyeen farageliyaan waana siday iyagu doonayaan ayay mar walba eegayaan dana Soomaaliya u danana ma eegaan ummadda Soomaaliyeed inay horumar iyo dawlad cageeda ku taagnaata ay yeelato meel kasta Soomaali joogtabana ma ogola laakiin waxaad moodaa Soomaalidu in dadkii cadawga u ahaa aan dawladooda doonaynin inay mar walba garab ka saarayaan iyagu ay kala hor dheereynayaan taageeraya horta marka ugu horeysa beesha caalamka inay Soomaaliya inay isu keento saddex qolo oo Somaliland waa maqan tahay Puntlandna waa maqan tahay saddex maamul goboleed mid awalay goosatay waa goosanay yiraahdeen labana hadda waa sii maqan tahay saddex maamul goboleed la soo hirtay saddex maamul goboleed waxba ma qaban karaan waxaan codsanaynaa beesha caalamka inay Soomaaliya dib badan ku dhex yaala dhibaato badan ay kala tabanaysa in Soomaaliya la isu baadi goobo beesha caalamka hal meel ka soo jeesato beesha caalamka qaar kamid ah Soomaaliya iyaga kala fadqalayo kala xirxiraya markuu nin walbaaba oo fikirkiisa iyo tala gooni oo wato oo qiibalahay waxay wali jirtaa Soomaali waa hal wadan waa hal dal ina maanto qaaradna loo qaybiyo waagi dambana anaga hadana isla yiraaho Jubbaland way maqan tahay Puntland way maqan Soomaaliland hore u goday
dhammaantood madaxda waxaan weydiisanayaa aayaha Soomaaliyeed gacantooda ku jira mustaqbalka anaga haddaan nahay ubaxa dalka waxaan ku sugaynaa madaxda Soomaaliyeed inay isku tanasulaan qof walba danta shakhsi danta khaaska laga hormariyo beesha caalamka iyo daneeyaasha Soomaaliduna runtii ay weerarad badan ay ka muujisay ayaamahana ay ka soo saarayeen baaqiyo iyo arrimo kala duwan kaliya anigu baaqayga ama taladayda ama aragtidayda waxa ay tahay Soomaalidu haraa looga maamaahay waxa la yidhi inaan rag walaalo wuxuu ku dhaamaa ma jirto sidaa darteed in la isku tanaasulo dulqaad la muujiyo shirka dhuusamareeb 3 laga dhabeeyo lama oga go'aanada ka soo bixi kara shirka dhuusamareeb 3 oo ay ka maqayeen hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland dhinaca kale waxaa kordhaya cadaadiska ka imaanaya beesha caalamka lamana oga haddii wax isbedeli doonaan oo ay hogaamiyaasha maqan shirka imaan doonaan iyo haddii dowladda Soomaaliya iyo madaxda shiraysan ay go'aano isla qaadan karaan guddigan oo siyaaya ra'iisul wasaaraha dalka u xil saaray baaritaan inay ku sameeyaan sababtii keentay dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Xamar 10kii bishan ayaa maanta kulan la yeesheen waxa ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku soo ogaadeen baaritaanka ay soo sameeyeen waxaana ka mid ahaa in hub iyo rasaas la geeyay xabsiga dhexe kuwaasi oo lagu qariyay hilib iyo jawaan liina guddiga waxay ogaadeen in maalintii 8aad bisha 8aad xabsiga dhexe la soo geliyay hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray waxaa kale guddigu u caddaatay in maalintii 10ka bisha loo keenay maxaabiistii meesha ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyin ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liin ah marna waxaa lagu soo qariyay hilib hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garooway in dhibaato meesha ay ka ridaan waxay u suurto gashay in ay dagaalka ay bilaawaan maalintii 10aad bisha 8aad halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin maxbuuskii ugu horeeyay oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisna uu ku dilay sirkaal ilaalinaya maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa loo gudbiyay 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo ay ku jiraan taliyaha iyo taliye ku-xigeenka xabsiga dhexe kuwaasi oo lagu eedeeyay fudayn iyo dayacaad mas'uuliyadda ay hayeen waxaa sidoo kale loo xiray falkaasi 6 qof oo shacab ah kuwaasi oo lagu tuhmayo inay xabsiga dhexe hubka geeyeen ay maxaabiistu ku dagaalameen waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masme ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan kuwaas oo hadda si fiican loo baaray waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo waxaa weeye waxaa xabsiga dhexe qofkii marka mas-uul ka ahaa taliyihii xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo waxaa kale falkan loo qabtay 6 qof oo ayagana muwaadiniin ahaa civilian kuwaas oo ayagana la aaminsan yahay inay fududeeyeen oo qeyb ka qaateen kuwaas oo ayagana lahaayo baaritaan ku socda waxaa sidoo kale lahaaya 9 qof oo maxaabiista ka mid ah oo qeyb weyn ka qaatay falkan hadda waxaa gacanta ku haaya baaritaankiisa
guddiga markuu soo dhammaystiray baaritaankiisa waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida maadaama dadkan ciidan ay u badnaayeen dadka kale caawina ay ahaayeen dad argagixisada la shaqaynayay iyadoo wax laga baranayo dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar ayuu sheegay wasiirka cadaaladda in la dhaqan geliyo isla markaana uu faray saraakiisha ciidanka asluubta inay ku shaqeeyaan hanaanka iyo shuruucda cadaaladda waddanka u taala isla markaana ay dhaqan geliyaan ciidamada asluubta si looga baaqsado in dhacdo la mid ah taasi ay ka dhacdo xabsiga dhexe waxaa wasaaradda cadaaladda ka howlgashay in dib u howlgeliso shuruucda xabsiyada dalka sharci number 7 oo soo baxay 30 bishii 12 1971 iyo habraaca xabsiyada dalka habraacaas oo nambarkiisu yahay 49 oo soo baxay bishii 9 taariikh 9 bishii 8 1984 habraacaas waxaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha laga mamnuucay xabsiyada dalka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto waxaa loo baahan yahay in tababaro khaas ah la siiyo ciidamada usluubta wacyigelin guudna la siiyo maxaabista ku jirto waxaan faray ciidamada usluubta iyo taliyaashaba in habraacaas iyo shuruucdaas la howlgeliyey ay u hoggaansamaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in lasoo gebagabeeyey dadna loo haayo dhacdadii xanuunka badneed oo xabsiga dhexa ka dhacday waxaan aad iyo aad ugu xunahay intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantay waxaan leenahay intii ku dhimatay oo ciidamada usluubta ka mid ah oo dagaalkaas ka qayb qaadatay oo halgamiyaasha ah waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo kuwa faldambiyeedka ku kacaya ummadana ma aragtay u horseedayo dhibaato waxaan leenahay ayagana ciqaabtooda way heli doonaan kadib kulan maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda kala guurka ah ee dalku uu marayo gaar ahaan doorashada iyo shirka magaalada Dhuusamareeb uga socda madaxda Soomaalida madaxda dawladda Soomaaliya ayay ugu baaqeen odayaasha dhaqanku inaysan dalka u horseedin fowdo iyo jahwareer siyaasadeed isla markaana aan qalqal gelin waqtiga la isla ogol yahay ee doorashada dalka kursi waa wada jeceshiin Allah idin sakharo waa salidin ku dhagan yahay qolada ka dambeeyo doorashada hadii timaado qolaba waa idinku dhagan tahay ninka Ilaahay u qadaraan helahayo kursi jeclaysiga iyo shaarka iyo suudka inta iska deydaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo la isla ogol yahay maalin lagu darin wadanka haloo horseedo intaas ayuu leeyahay shirkii koowaad iyo kii labaad galmudug waa lagu najaxay alxamdulillah waxaan soo jeedinayaa shirkaasi waa shir Soomaaliyeed sida wax loo dhisaa way fududahay sida wax loo dumiyaa way fududahay laakiin sida wax loo dhisaa waa adag tahay waa udub dhaxaadkii shirka nabadda galmudug waa shirka nabadda Soomaaliya waxaana asaas u ahaa oo furo waa shirkii nabadda Hobyo waxaan rabnaa qaybaha ka maqan inaysan fiirin danta ay ayaga qaaska u leeyihiin ay fiiriyaan dadka wakiilka ay ka yihiin ama mas'uuliyadda ay u hayaan